koogo afar tallaabo oo ku saabsan TikTok sanadihii u dambeeyay waxaa Soomaalidu aad iyo aad u isticmaaliseen aaladda loo yaqaan TikTok oo ay dhalinyaro badan oo Soomaaliya ay horumar fara badan ka sameeyeen horumar fiican haye haddaba afarta tallaabo ee TikTok maanta ka baran waxa kamid ah kow markaas aad TikTok soo furto tallaabada koobaad ee qaadayna waxa weeye sideeba loo qariyaa waxa la yiraahdo bahalkeerka loo soo qarsadaa markaas aad soo gashid qeybaad video ee aad doonaysid bareefad inaad ka dhigto aad u qarsataa hay'ad tusaale inaan kaasan doonayay inaan bareefad ka dhigo oo qariyo halka videogaas aan rabaa inaan qariyo haye haddaba soo soco waxaad taabataa haddaba TikTok labada dhibcood saddex dhibcood taabo sidaad markuu kuugu soo baxo sideen soo riix dhinaca u soco xagga ma u socotay markaad bartaa tagtay gambaleelka yar waxay xagga u foorara tagtay ama adhaas ka soo gud bartaa qafilka saaran privacy and setting tag saamo taabatay halkan you can watch videogan ma daawan karaya waxa weeye friend to and only me baad marka ka dhiganaysaa kadib aad ka soo noqonaysaa haye baalkii saad u aragtaan meesha ka yaala marka labaad sidoo Facebook-kaaga YouTube-kaaga soo xidhan karaysaa profile-ka soo fur waxaad sameeyay profile-ka soo jeedin barta ay ku qoran tahay baalkeer ku bastigare linkiga soo qaatay laba marka halkaas aad waxyaalaha TikTok iyo YouTube-ka ay sanaa iska xidhan qodobka saddexaad waxaad samaysaa haddii Allahumma musta'an wa qaadan aqliga Allahumma musta'an kalabaad waxaad samaynaysaa sidee baad u qarinaysaa follower-kaaga Allahumma musta'an follower-kaas waxaad u qarin karaysaa waxaad tagaysaa soo furo profile-kaaga saddex dhibcood soo furo bartay preference ku qoran tahay gal preference markay ku qoran tahay barta markaad gashid halkaan in laga dhulid galayso waxa ka bartaas ka xiraysaa markaad fariisidna halkaas ka fariisaa qodobkaasi waa qodobkii laba saddexaad qodobka afraadna waxa weeye who is qofka ku soo raacaya the list and ku soo raacayana only me marka ka dhiganaysa marka isagana saasaad ka dhiganaysa Allahumma musta'an marka wixii dambe ku soo bir page-kayga TikTok-ka ama YouTube channel-kayga markaas aad soo gashid aad video-ga aragtid waxaad ku fanaysaa halka isagoo dhameystiran waxaad ka daawan karaysaa barta TikTok.